waxaa laga diyaariyay 300 oo dumar ah oo jiida hore saraakiisha ciidanka la gali doonta reer Wasileed gacmaha taaga inaad diyaar u tihiin inaad sida awgeeda waxaan rabnaa reer Wasileedow maadaama aad hoggaan ka ahaydeen wajigii horeeto maanta mar kale kacdoonkan midkii ka culus ee lagu soo gabagabaynayo lagu soo afjarayo khawaarijta inaad qaybtii kale ka qaadataan waxa yimid dadkii walaalaha ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala inamal mu'minuna ikhwatan yiri diin iyo nasab aan walaalka ku ahayn ay ugu soo hormareen walaalahayna reer Sure ama Xiraale ama Huurshe ama Bacaadweyn ama Marjicle mid la yiraahdo degmo kasta la arko waxa ay ku garab istaagayaan ciidanka hadday calaf tahay iyo hadday cood tahay wax kasta inay diyaar garoobaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta u helna cadawgii aan la hargamaynay 2 sano iyo ka siyaadada kaligeen inaan maanta u helna garba buuxa oo heer federaal iyo heer isteed iyo heer deegaan intaba runtii aad iyo aad bay noo farxad galinaysaa waxay nooga dhigan tahay awal madiba ahayn haddaan nahay reer gobolka Mudug maanta waxaan helnay garba ayaan helnay walaalo ayaan helnay maadaama ay nala qaateen gobolada Soomaaliya dhamaantood oo idil halkan waxaa laga diyaariyay 300 oo dumar ah oo jiida hore saraakiisha ciidanka la gali doonta reer Wasileed gacmaha taaga inaad diyaar u tihiin inaad cirib tirtaan cadawga ummadda Soomaaliyeed ee khawaarijta islaam ma ahan waa gaalo saqiirkii labada bilood jiray bireynayaan shacabkii bay dilayaan dumarkii bay dilayaan xoolihii bay bireynayaan ummadda Ilaahay bay dhacayaan diyaar ma u nahay inaan ka qayb qaadano cirib tirka khawaarijta waa mar kale banaanbax khawaarijta looga soo horjeedo lugana taageerayo dawlad iyo shacabba waxa Allah waxa khawaarijta la jihaadaya sida awgeeda waxaan rabnaa reer Wasileedow maadaama aad hoggaan ka ahaydeen wajigii horeeto maanta mar kale kacdoonkan midkii ka culus ee lagu soo gabagabaynayo lagu soo afjarayo khawaarijta inaad qaybtii kale ka qaadataan dagaalka khawaarijta haddaan ugu sinteen oo halkaan ay soo gaarsiiseen Ilaahay iidankii waxaan rajo ka qabnaa inaan wax ka dhamaystirno garbiheena istaagno in la socono deegaamo badan oo naga maqan annagana Soomaaliya oo dhan ka maqan Soomaaliya ka wada maqan yihiin gaar noogama maqna balse waa deegaanadeennii iyo halkii aan ku dhalannay waana tegaynaa hadduu alla idmo inay noqoto qaatimkii ugu dambeeyay insha Allah taala cadow lagu xarooy lahaa waana rajaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta u dambeeyay noqoto marka waxaan rabaa reer Wasileed inaan kula dardaarmo sida maanta u soo baxdeen iyo si ka balaaranba waxa yimid dadkii walaalaha ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala inamal mu'minuna ikhwatan yiri diin iyo nasab aan walaalka ku ahayn ay ugu soo hormareen walaalahayna reer Sure ama Xiraale ama Huurshe ama Bacaadweyn ama Marjicle mid la yiraahdo dhammaan insha Allah taala xalana soo gaaray kuwa ku soo xogana soo gaari doona reer Wasileed waxa la rabaa insha Allah taala soo tali u sheegay in la garab istaago dadka la soo dhaweeyo insha Allah taala waxaan rabnaa inaan tartankaas inaan qabanno haddii alla idmo degmada ugu hor qaadata ka qayb qaadashada iyo muxuu ahaa garab istaaga ciidamada qalabka sida hadday noqdaan kuwa Galmudug hadday noqdaan kuwa federaalka hadday noqdaan dadka deegaanka waxaan rabnaa in si dhab ah loo garab istaago oo degmo kasta la arko waxa ay ku garab istaagayaan ciidanka hadday calaf tahay iyo hadday cood tahay wax kasta inay diyaar garoobaan oo ay yiraahdaan waxaasaan kaga qayb galaynaa haddii alla idmo xoogga qofka naftiisa keena oo naftiisa meesha keena oo yiraahda diyaar baan ahay anigu iyo qofka xoola keena iyo qofka muxuu ahaa gaadiid keena dhammaan qof kasta waxa looga baahan yahay in uu ka qayb qaato